sidii aad ka warhaysiin degmada Balcad waxaan imaanay 2 maalin ka hor 3 maalin ka hor sidaan filayo ayada oo codsi noo soo diray gudoomiyihii degmada iyo maamulka Hirshabeelle codsigaasna ay noo soo dhaxmariyeen agaasimaha laanta shanaad oo Hirshabeelle noo qaabilsan Hirshabeelle oo dhan hay'adda socdaalka jinsiyadda waxaa la yiraahdaa xafiisyada ka shaqeeya laanta shanaad runtii inagoo codsigaas ka jawaabayno waxaan imaanay maalmo ka hor waxaan fiirinay xafiisyadii degmadana siisay oo aan aad uga amaanayno in xafiis fiican oo meel lagu shaqeyn kara ahna ayna siiyeen noona qalabeeyeen oo qalab wixii uu aan u baahnayn dhan ay noo dhimeystireen hay'adda socdaalka jinsiyaddana waxay go'aansatay in codsigaas la ajiibo lagana soo howlgalo marka maanta waa ilaah mahadiis inaan xafiiska keeno qalabkiisa oo dhameystiran iyo saraakiisha ku shaqeyn lahayd shaqadeena si official ah wixii maanta ka dambeeyo ay u bilaabnaan doontaa haddii aan leeyahay dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inaynan aad u fahmin hay'adda socdaalka jinsiyadda waxyaabaha ay qabanayso waa shaqooyinkeeda waa badan yihiin socdaal iyo jinsiyad labadaba waa laga shaqeeyaa laakiin degmadii aan eelboor lahayn waxaa laga shaqeeyaa waa baasboorkaas oo qof walba muwaadan ah oo Soomaali ah xaq u leh qof kasta oo Soomaali ah xaq u leeyahay adeegaas marka waxaa laga bixin jiray sidaad ogtihiin Muqdisho oo kaliya markii hore meesha loo doonan jiray laakiin muddooyinkii dambe waxaa la bilaabay in adeegga la daadejiyo oo dadkii deegaanadooda looga geeyo meeshaas ay ka soo process gareystaan si looga yareeyo caqabadihii oo qofkaas ku dhici lahaa hadday ahaan lahayd inuu safar galo Muqdisho markuu tagana deegaankiisa aan ahayn oo hotel iyo qarash fara badan uu ka bixi lahaa waxaa la go'aansaday marka in deegaanada oo munaasabka ah oo sida degmadan oo kale codsi soo gudbisay meel fiican oo lagu shaqeyn karana ay nasiisay in aan adeegaas gaarsino marka Balcad waa u mahadcelinaynaa wixii maanta laga bilaabo adeegii qof kasta oo reer Balcad ah iyo tuulooyinkan ereyadan joogo wuxuu ka soo doonan karaa degmada Balcad